Kusoo dhawaada daawadayaal mar kale barnaamijkeenii xiisaha badnaa ee macluumaad kaa maqan oo aan maanta in kugu soo gudbin doono 5 dila oo ka mid ah dilayaashii ugu xumaa ee abid soo mara adduunka. Haddaba si aad ula socoto warbixino kaloo badan fadlan pageka like saar oo la soco warbixino ku raali gelin doono. Waana mahadsan tahay. Pedro Alonso Lopez wuxuu dhashay 8 Oktoobar 1948 wuxuuna u dhashay wadanka Colombia. Waxaa loo xukumay dilidda 80 gabdhood balse sheegtay inuu xoogay oo uu dilay in ka badan 300 oo gabdhood isagoo ku kala geystay falalkaas wadankiisa Peru, Ecuador iyo sidoo kale ay macquul tahay wadamo intaas kasii badan. Lopez dambiyadiisa ayaa markii ugu horeysay helay fiiro caalami ah kadib markii uu wareysi la yeeshay Ron Leitner oo ahaa saxafi ruqcadda ah oo in badan kasoo shaqeynayay saxaafadda. wareysigaasi uu Lopez la yeeshay ayaa ka dhacay xabsiga Ambato 1980. wareysigan ayaa si ballaaran u baahay iyadoo ugu horreyn uu soo daabacay wargeys kasoo baxay Chicago maalin Axad 13 Julaay 1980 kadibna Toronto Sun iyo Sacramento Bee 21 Julaay 1980. intaas kadib ayuu ku baahay wargeysyo badan oo kasoo baxa North America. Lopez ayaa wareysigan kaga sheekeeyay dambiyadiisa qaar ka mid ah isagoo sheegay in laftigiisu booliska Ecuador u kaxeeyay uu u hogaamiyey uuna geeyay 53 qabri oo gabdho yaryar ee da-dooduna u dhexeysa 9 ilaa 12 sano oo uu dilay. 1983 ayaa la helay in ka badan intaas oo gaaray 110 gabdhood isla Ecuador. dhinaca kalena Peru iyo Colombia ayaa uu ku dilay ilaa 240 gabdhood. Pedro Lopez aabihiis Milagro Reyes ayaa qiyaamay gabar ka mid gabdhaha jirkooda ka ganacsado lagu magacaabo Benilda Lopez de Castaneda oo in yar kadib uur u qaaday Reyes 4 Abriil 1948 markii ay Benilda lahayd uur 3 bilood ee way sidii Lopez ayaa Reyes oo ahaa Lopez aabihiis la dilay. 6 bilood kadib ayuu Pedro dhashay Santa Isabel wuxuuna ahaa cunugii 7aad carruur ka kooban 13 qof. sida laga soo xigtay Lopez ayaa sheegay in hooyadiis ay ka raacday guriga sanadii 1957 kadib markii ay ku qabatay isagoo salsalaaxaya gabadha walaashiisa ka yar wuxuuna ahaa 8 sano jir. arrintani ayaa keentay inuu Pedro u cararo dhinaca Bogota oo ah caasimadda Colombia waxaana hore usii qaaday nin isagoona geeyay guri aan cidna joogin si joogto ahna uu u furxumeyn jiray. 12 sano markuu gaaray ayaa waxaa qaatay faamil Mareykan ah iyagoo geeyay iskoolka agoonta. hase ahaatee 2 sano kadib ayuu iskoolkii ka orday maxaa yeelay wuxuu si sharci darro ah u dhibaateeyay macallin. da-diisu markay gaartay 18 sano ayuu bilaabay inuu baabuur xado wuxuuna xaday baabuur. ficilkan ayaa dhibaato u keentay noloshiisii dambe isagoo sheegay intuu xabsiga ku jiray in si wuxuushnimo ah loo xoogay xabsiga dhexdiisa. hase ahaatee uu gadaal ka aarsaday oo dadkii xoogay dhammaantood uu dilay isla intii ay ahaayeen maxbuusta. Lopez ayaa sheegay in xabsiga markuu dhamaystay kadib uu bilaabay inuu kufsado gabdhaha yaryar ee u dhashay Peru isaga ayaana sheegtay midaas. 1978 ayuu dilay 100 ayaga ka mid ah wuxuuna sheegay inay qabteen qabiil ka mid ah qabaa'ilada dega meeshaasi kuwaasoo doonayay inay dilaan. hase ahaatee waxaa soo dhexgalay adeegayaal Mareykan ah kuwaasoo ku qanciyay qabiilka inay u dhiibaan booliska ayaa wax uun yar kadib iska sii daayay wuxuuna sheegay inuu u noqday Colombia kadibna sii aaday Ecuador. wuxuu sheegay in isbuuciba uu dili jiray 3 gabdhood wuxuuna yidhi Lopez waxaan jeclahay gabdhaha Ecuador maxaa yeelay waa gabdho xushmad leh
waana gabdho si fudud kugu aamini karo, waana gabdho aan waxba galabsanin. Pedro Lopez ayaa si fudud ku heli jiray kalsoonida gabdhaha ka hor inta uusan usoo kaxaysan goobta ay ugu taalo godka uu ku rido gabdhaha marka uu dilo kadib. Halkaas ayuuna habeenkii oo idil kula cawiyaa gabadha isagoo kula caba meeshaasi khamri. Hase ahaatee isla habeennimadii ma dilo, waayo wuxuu sheegay inuu jecel yahay inuu maalnimadii dilo iyadoo indhaheeda ay furan yihiin, taasi oo uu sheegay inuu aad iyo aad ugu raaxaysto markii uu sameynayo. Pedro Lopez ayaa 10 qayb u kala dhigay jirka gabadha kadib markii uu dilo, isagoona ku tuuro god weyn oo uu ku rido gabdhaha uu dilay. Lopez ayaa sheegay in hadduu xabsiga ka baxo uu si farxad leh kusii wadan doono howshiisa. Hase ahaatee 20 sano oo uu xirnaa kadib hadda waa la sii daayay, lamana ogo waxa ilaa hadda uu sameeyey oo kale.